Qoal waayeel waxgarad iyo aqoon-yahan ayaa kulan saaka isugu yimaadeen gudaha magaalada Ceerikabo waxay si weyn u taageereen nabadda iyo xasilloonida ka jirta dalka iyagoo si cadna uga soo horjeestay cid kasta oo isku dayda inay khalkhal iyo xasillooni darro dalka ka abuuraan waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ilaalino nabadgelyada ciddii mas'uuliyaddeeda lina waa la garanayaa dawlad baa mas'uuliyaddeeda iska leh nabadgelyada haddii ay dawlad la waayo waxba jiri maayaan waxaynu ku bogaadinaynaa xisbiyada mucaaridka iyo dawladda labadaba doorasho way iska dhici doontaa waqtigii ilaahay ku talagalo laakiin waxaynu ka baryaynaa oo ka codsanaynaa nabadgelyada in lagu dadaalo dhinac walba haddii ay dawlad tahay iyo haddii ay mucaarad tahay nin walba wax anfaca ee wax tara waa nabadgelyo haddii la waayo waxba jiri maaya haddii nabadgelyo la waayo reer Somaliland ama reer Sanaago waxba jiri maayaan laakiin nabadda ilaashano innagu waayeelkii baynu nahay xaq baa laynoo ku leeyahay inaynu nabadda ka shaqeyno xaq baa laynoo ku leeyahay ninkii dhib ama dabsida inaynu dhano war naga joog allaha lamahay naga joog anigu waa ka soo horjeedaa reerka anna maanta iigu rida waa ka soo horjeedaa runtii waayo sababtaa waxay noqonaysaa reer uun wax loo doortay waxa ka fiican inaynu wada dooranno gebigeenu oo muujiya waxaynu u dhannahay haddii reerba yidhaaho mar aniga isiiyo reerkaan ku dhacaya dee waxbayna ka hadhi maayaan meel aan dawlad lahayn waa qof qaawan weeye anigu waxaan leenahay war qoladiina xusbiyada ah ku tala gashay inaad doorkan idinku qaadataan oo bilaha kan sumantatay waxaan leenahay raalli ahaada dalka iyo dadka u tura dulqaata haddaan laysu dulqaadan waxba ma hagaagayaan adkaynta nabadgelyadu sidaa la sheegay waa shay qaaliya oo nafla kastii u baahan yahay sidaa darteed waxa muhiima inaynu ilaalino nabadgelyada xisbiyada waa kuwii lahaa la doorta maantana wuxuu ku leeyahay Somalilandna ma jirto hadaa laba kuroyaay dawladina ma jirto dee waxaasna wax la aqbali karo maaha kii ku lahaa i dooro i taagan ee kuwa i dooro dawladnimadii jirtay dafiraya isaguna dhibtiisu leeyahay wixii aan wanaagsanayn markaa ee burburinaya ama waxyeelaya Somaliland iyo nolosheenaba runtii waxaa quman oo habboon inaynu intayna kale iyo waayeelkahay aynu nabadda gacanta ku hayno على معارض iyo muxaafidba waxaynu u baahannahay nabadgelyo inaynu nabadgelyada ilaalino inaynu dhinac taagno cid allaale ciddii nabadgelyada ilaalinaysana isgarab taagno cid allaale ciddii nabadgelyada wax yeelaysana aynu dee la hadallo oo aynu gacanta afka wax ugu sheegno baa laga maarmaana inagu ma nihin mucaaradkana waa yiil innaga u ah muxaafidka iyo dawladdana innagaa waa yiil u ah wixii khaldan inaynu wax ka qabanaan la rabaa waxaan filayaa waxaynu isugu nimi baaq nabadgelyo baaqa nabadgelyadana waa waxa keliya isu keen haya waa waxa keliya aynu u xasiloonahay oo guryaheenna u hurudnaa alxamdulillahi rabbilcaalamiin ilaahay noo suuro geliyey nabadgelyadeenna baa mahadnaq leh waxaan kaloo u mahadnaqayaa cid kasta oo nabadda jecel oo reer Somaliland aan leeyahay dalku madaxweyne u leeyahay ma dhici ma dee waxaynu garanayno maaha doorashana ha la galo dalkuna madaxweyne male taa waan kasoo horjeednaa waan cambaaraynayna waxaanu leenahay siyaasiyiintu wada hadalka iyo roolka nabadda ha ku soo wada noqdeen bulshadoodana ha u tureen ninkii labaad oo kursiga doonayana waa soo dhawaynaynaa asxaab baynu leenahay asxaabtu sidii kursiga madaxweynaha hore ku fuulay si lamid aynu doonaynaa inay u fuusho haddii ilaahay dee u qadaro laakiin bulshada kama dhaxayso doorashada goormaa la qabanayaa keebaa horeynaya waxa weeye siyaasiyiintu iyagaa ka heshiinaya waxaa
iyagaana iska keen xiga bulshada fariintaan u dirayaana waxa weeye Somaliland nabad baa naas la maalo leh nabad baynu haysanaa nabadgelyadeena aan ku mintidno waxaanu halkan isugu nimi simadii iyo oday dhaqameedkii gobolka Sanaag degmada Ceergaabo waxaanuna rabnaa inaanu jeedino baaq nabadgelyo oo dalka oo dhan ah xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay haddaad tidhaahdaan dawladi ma jirto yaad xukumaysaan horta waxaan idin odhan lahaa hadalka apologise laga bixiyo hadal gefa weeye deganaanshaha iyo nabadda wax ku helaysaa berri haddaad timaadaan waanu idinla shaqaynay haddaanu odayaasha dhaqanka ugu dhexaynaa dadka waxaana odhan lahaa annagu isimaanu nahay hadda xisbul xaakimkii jooga baanu la shaqaynaynaa sababtoo ah isimadayada horjoogayaasha qabaa'ilka ah mar walba waxaan u baahanaa system iyo xukuumad sababtoo ah haddii gacan ku dhiig la cid dilo boolis noo soo qabtaanu doonaynaa haddii laba reer isdilaan waxaanu doonaynaa ciidan kala dhex fadhiista saasaanan marba aanan sinaba uga maarmin maamul iyo system qolyaha xisbiyada mucaaradku hadday yimaadaan waanu idinla shaqaynaynaa laakiin wadadeeda mara baanu leenahay halka waxaynu isugu nimi insha allah nabad baynu isaga baaqaynaa mid madaxa iyo mid manja ah iyo mid xisbi ah iyo mid xisbi xaakim ah waxaba waxaan leeyahay nabad ha laga shaqeeyo nabad ha laga shaqeeyo wixii aan nabada ka shaqeyna aan isugu mid ahaano nabadda mid yar iyo mid weyn haween cid kastaba ha laga shaqeeyo nabadda unbaa lagu nool yahay ha laga shaqeeyo wixii nabadda kasoo horjeedana ha la iskaga mid noqdo nabad nin walba wado nabad baa naasna noogu leh haddii nabad la waayo shirna la isugu iman maayo lana xaragoon maayo gaarina ku socon maayo nina dan uu leeyahay qabsan kari maayo horta nabadda nin walba wado qabsan kari maayo horta nabadda nin walba wado ninka iska diidaya nabad ma rabo dee isaga cirka roobka ogaadhiya la tagay annaga waxaa noo dana nabad sidii ka hadlaya caaqilkii halkaa ninka dee nabadda diida cidina raacmayso cidina haddii alliba kuu roon yahay waxba uma aha xagga ilaahayna waa ka fogyahay marka annaku haddaanu qaryadda magaalada ka hadlaysan iyo gobaankeeda annagu haddaanu qabaa'ilada miyiga yaalnahay waxaynu isugu nimi baaq nabadeed inagoo ku baaqayna nabadgelyada la adkayo oo nabadgelyo wax ka fiican ma jiraan aan nabadgelyada adkaysano oo waxaa moodaa in qaar nabadgelyada ha la adkayo marka la yidhaaho in qaar loo jeedo way leeyihiin annagaana loo jeedo cidnay ma jeedno waxaynu u jeednaa nabadgelyo waana isku raaxsanahay gobolka Sanaag haddaan nahay marka waxaanu ku taahaynaa oo ku wada deganahay inaanu nabadgelyo helo ninku si doonayaana nabadgelyo waa u baahan yahay ninku fadhiyaana waa u baahan yahay nabadgelyadaasaanu adkaynaynaa raggii iga horreeyana sidaasuu yidhi annuna waa ku raacsannahay waxaa laga hadlayaa waynu isugu nimi waa nabadgelyada nabaddu waa macaan tahay nabadda aynoo dara horta marka ugu horeysa waa inaynu nabadda inagu gobolkeenna xil naga saareeyahe waa inaynu nabadda ka shaqaynaa nabad baa macaan dawladda hadda madaxweynaha muuse iyo xisbiyadu dee si degan ay wax ku doonaan oo aanay foodo wax ku doonan oo dawladda ma jirto kicitaan shacabi iyo dee taasu ma noqonayso wax ina dhaqa ama iyagaba future-kooda u wanaagsan maaha muusena dee madaxa wax leeyahay meel ka sara soo salaxa ma jirtee waa inuu dul yeeshaa maadaama madaxweyne dalka yahay waa inuu xitaa tanaasul sameeyaa isagoo u danaynaya shacabka Somaliland iyo deganaanshaha dalka waa fariin aan xagga u gudbinayo waxa weeye muddaa la dhigtay anigu waxaana xusba kulmiyo weligay ma noqon ilaa 60kii
mucaarad ma noqon haddana kulmiyaana xusbigaa saara waa igu caadaa reerkan iminka la sheegayo lalahaa madaxweynaha iyaga iyo leeyihiin waxbaa ka jira waxa weeye oo marka hore muuse biixi cabdi xildiid nuur guuleed uu dul qaataa mucaaradku galgalad iyo waxbuu doondoonayaa la qaaday oo la doortay 5 sano ay ahayd waxa ka yimi asbaabo isla eeg laysla eego ka tartamaya inta badan soo tartamayay iyo kaa mid walba doorashadu wuu furantay mid kaba ku jira xusbiyada mucaaradka waddanka dawlad baa ka dhisan annagu waxaanu nahay dhex haddaanu odayaasha nahay waa inaanu mucaaradkana qaban karaa madaxweynaha iyo dawladdana qaban karaa doorashooyinkiina way nagu soo fool yihiin madaxweynuhuna waa ogol yahay waddanka yaani burbur iyo rabshad iyo qax iyo haddii ilaahay qadar dhimasho iyo dhaawac yaanu ka dhicin nabadda ha loo hoggaansamo dalku dastuur buu leeyahayo madaxweynea bedela waxaad moodaa inaynu qararac maraynaayo dee anigu waa la yaabaa marka dadku waa inay nabadgelyadooda ilaashadaan dalkana dawlad baa ka jirta dawladdu ciidankeedii bay leedahay shaqaalaheedii bay leedahay wax allaali wax ka khaldani ma jiraan ka dambee qabsadana iyadaa dawlada ka iminka haystaana isagaa dawlada maxamed cabdullaahi cisho madaxweyne musharaxa madaxweynaha ee haddeer kursiga doonaya waxaan hawada u marinaya u sheegayaa dee madaxnimada waa loo samraa dee rag baa 9 sano sugayey oo ka sugayay dhinac cigaal oo rag baa 8 sugayey kana 5 unba u dhammaatee dee bahasha sugoo howlan dawladdu ma jirto oo madaxweyne ma jiro boolajiis ka bixoo ka noqo waxa meesha loo yimi waxa weeye inaynu nidhaahno oo keliya war amnigaan adkayno inagu ina anfacaa cid kale ma anfaco africa waxa weeyaan dadka ugu reer somaliland baa ugu ammaan badan dawlad la-aan ilaahay baynu ka magan gelaynaa dawlad la-aan ilaahay baynu ka magan gelaynaa haddaynu somaliland nahay bogcadda aynu ku naallo ee maanta aynu degannahay quruxda iyo sharafta ay leedahay geeska africa waa ka gaar cid kastoo maanta kursi ku doonaysa kii ilaahay u qoray wuu helayaa madaxweyne waxa bedela sharci waxaan ugu baaqaynaa mid soo socda iyo mid maanta urura iyo mid xukuumad jooga inaynu sharcigii aynu ku heshiinay aynu dhowro ayaynu isku waaninaynaa waxaynu isku waaninaynaa inaynu nabadda ilaashano inaynu horumarka ka talino waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland